marka waxbarashada waxay kala baxdaa saddex qaybood formal non formal iyo informal formal education waxbarashada qaabaysan waxa waaye markuu qofka iskuul aado oo jeedaan ardadan uniform ay qabaan ardadan maxaa u jeedin iskuul uniform ay qabaan maxaa kaloo u jeedin معلك يبوكتي صورتي معلك وتاجين ماشي مركب محل لا تعبوا يعني حاجة مرة أنا لا برشلونة سكندري دوكسي صار مش دوكسي واصل مش دوكسي ده هذا أوكي formal education كواحد واحد مركب قف مركب سكول تجو دوكسي تجو دوكسي واصل حياة صار كبعد كتب جامعات تجو جامعات شهادة كوادو قاطو شهادة لوادو قاطو تاسو حلو قناة formal education marka waxa qalada waxbarashada kaliya ma aha taas waa qayb kamid ah waxbarashada waqti bilaabanaysa waqti dhamaanaysa waxbarashada qaabaysan waxay leedahay isreereeb imtixaan ay jiro waa lagu dhacayo waa lagu baasaya adoo imtixaan ku dhacay jaamacad ma geli kartid ama adoo dugsi sare soo maray inta soo booday jaamacad ma geli kartid waxaa leeyahay ma shaqaynayso sax waxaa jiro marka non formal education dadka iskuulkii ama qalalaas ku dhacay ama dagaal ku dhacay oo iskuulkii waayay ama duruufo kale ay waayeen ayaga marka waxay leeyihiin xal kale xalka waxa waaye non formal education koorsooyin degdega laga gaarsiiyo meeshii 10 sano 12 sano ku baran lahaa 4 sano 3 sano dugsi hoose sare laga saaray qaabkaas waxaa waaye non formal education kabacdi ku galaya jaamacadii ama waxa waaye qof weyn waaye هذا عرور إدوكسي استيو يعيس متى يكره ويروح إنه شقيسته وراح على برا حفظه وشقيسته بركاس هو شغال كجلا أفكاس وحبوب برتق لكن ثقة على سمو برني طبعا تاني لا أوكي ندوس عنا بدرس ده حد قواعد informal education قاب كان وقاب كوم يمسنا waxay bilaabataa markaa dhalatid ilaa ka dhintid waxa waaye waxbarashada laga baranaayo maxaa la yiraahdaa cid walba wax ka baranaysa naftaada wax ka baranaysaa waayaha wax ka baranaysaa wax ka baranaysaa waalidkaa wax ka baranaysaa wax ka baranaysaa qofkaaga wax ka baranaysaa waxaa dhici karta qofkaaga in wax ka baranaysaa marka waa in maskaxdaada aad furtaa wiilashan hadda waxay baranayaan sida taayarka loo bedelo baaskiilka ama baaskiilka loo hagaajiyo iskuullada lagu barto cuntada si loo kariyo maxaa la yiraahdaa iyo waxyaaba badan oo iskuullada lagu baran oo aan qaabaysnayn marka waa kaas ah waa isfahanay soo maa yaa su-aal qod okay marka su-aasha saddexaad waxay tahay marka waxbarasho waa fahanay nabadina waa fahanay maxaa iska gala sidee waxbarashadu ay maxaa la yiraahdaa aan horumarinta nabadda ama nabadda kaga qayb qaadan kartaa waxa uu leeyahay waxbarashadu waxay yareysaa heerka uu gaarsiisan yahay faldambiyeedyada cilmi baarisas lagu sameeyay Mareykanka waxay soo ogaadeen 8% dadka xabsiyada ku jiro state level in aysan haysanin shahaadada dugsi sare waxa kaloo jiro dadkii markii wax la baro laga baxo dagaalkii iyo wixii waxay yareynaysaa dadkaas inaysan khatarka inay kusan ku noqonin dagaaladii iyo qalalaasii waxa kaloo jiro haddii waxaan yiri ogaada nabadda waxa waaye in la helo cadaalad oo bulshada dhan ay helaan cadaalad markii bulshada waxbarasho la siiyo waxay dareemaysaa in xaq ay lahaayeen la siiyey marka waxay yareyn kartaa khatarta khilaafka oo aysan bulshada inaysan dareemin macnaha inaan la gacan bidixeenayo kale markaas waxaa timaada marka ardadii dadkii dhalinyarada ahaa iyo generationka cusbaa inay ka badbaadaan
خلاص لي يعطي tusaalaha sheegay markii Rwanda ay ka soo noqdeen dagaaladii xasuuqi kadib waxa la sameeyay siyaasadda waxbarashada dalka Rwanda waxa lagu daray macnaha in markii la sameeyay curriculum-ka masala manhajka waxbarashada waxa ardada la bari jiray in ay macnaha xoog saaraan inay isku dagaalaan laba qabiil Tutsi Hutu marka ardada cusub iyo generation ka cusub waxa la bari jiray taariikh ah iyo shakhsiyadda la hormarnayo oo qof Rwandese ah ma aha qof Tutsi ah mise Hutu ah sida ogtihiin maanta xarunta ogaal waxay soo bandhigaysay aqoon isweydaarsigii ugu horreeyay ee xarunta ay qabato marka maanta waxaa sidii lagu sheegayba soo bandhigay sida ka qoran gruupka loo yaqaan waayo arag oo ka tirsan xarunta ogaal marka xarunta ogaal waxay leedahay sidii ustaad maxamed hore u sheegayba members fara badan kuwaasoo loo kala qaybiyay kooxo si ay u soo baaraan mashaakisha iyo dhibaatooyinka dadka Soomaalida haysta oo maalinba mid looga doodo iyadoo inta kaliya aysan ahayn ay barnaamij kale ay jiri doonaan oo iyaguna foorumya kamid ah Google akhrin doona soo bandhigi doona marka dadka Soomaalida inay ka qayb qaadato taas dadka kaga gudbo groupkan maanta waxay ahaayeen 4 qof baa prestige sameeyay oo soo bandhigay wixii ay soo baareen iyagoo oo nagala hadlayay doorka ay waxbarashada ku leedahay nabadda maadaama nabaddu ay tahay dhibaatada ugu weyn ee haysata haddana dadka Soomaaliyeed si gaar ah si guudna ummadda Geeska Afrika oo dhan nabadda ayaa haysata dadka halkaan jooga nabadda keentay nabadduna kollaa marka nabad la yiraahdo micnaheedu ma aha absence of war meel baa ku arkay ana xabad inay maqan kaliya ma haddii gurigaagu nabad ay ku jirto oo xabad ka dhacayn nabadda kala haysata dhaqaale darradu waa nabad darro aqoon darradu waa nabad darro marka qofku loo baahan yahay nolosha security inuu helo nolosha security uu helo security waxa ka mid ah midkan caadiga ah ee xabad insa dhacayn waxa kaloo ka mid ah food security oo qofkii inuu noloshiisa haysto wuxuu cuni lahaa oo cabbi lahaa waxa kaloo ka mid ah health security oo inuu qofku caafimaadkiisa markuu xanuunsado inuu hospitaalka iskana bixin karo haddii uusan waxyaalaha ay ku educational security oo qofku waxbarashadiisa security haysan ku qasbayay meesha ugu dhow inuu qaxo sidaa darteed waxbarashadu roolinteed la ka qayb qaadan kartaa si nabad loo helo ayuu maanta mawduuc ahaa waxaa ka soo qaybgalay sida ku halkaan shaashada ka arkaysaan waxaa maanta soo bandhigayay waxaa nala jooga 3 xubnood oo ka tirsan xubnihii 4 ahaa waa Ibrahim Dirir Abdirashiid Jirfe Afwan Maxamed Buhari waxaa halkaa ka maqan Asmad Garaad inta la yiraahdo oo gruupka ka mid ahayd shaqadan ka soo qayb qaadatay iyadana xoogaa cudurdaar baa jiray waa ku dhawaaqay hooyada baa xanuunsan marka Ilaahay caafiyo in loo duceeyo marka hawlay saas nooga daahray taas markaa taariikh waxa bixinayna waxa ugu gudbaya xubnaha ayaan siinayaa su'aalo ku saabsan programka su'aasha koowaad waxaan siinayaa al-ustaad Abdirashiid Jirfe waxaan rabaa inaan ustaadka weydiiyo waxbarashada soo baadheen roolka ay waxbarashada ku leedahay nabadda sideedu qof wax bartay ama waxbarashada lafteedu ay qayb uga qaadan kartaa maxaan ku dhahdaa nabadda effectiga ama saameynta waxbarashadu ay ku yeelanayso dhisidda nabadda effectiga ama saameynta ay nabaddu ku yeelanayso ay waxbarashadu ku leedahay in la sameeyo ummad nabad ku nool بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين آدي حسن هاي سؤال شاس وسؤال وين بارتان كان نجي مثلا في سيدا هذا كيسين غير ما كنا نشرح هاي وحبر الشادو وحي هرمر
ku samaysaa qofka shakhsiga marka koowaad maskaxdiisa iyo fikirkiisa iyo dareenkiisa taas waxay ka bilaabanaysaa qofkii wax baranaya sida kale aad sawirka ku arkayseen hal qof keligii oo wax baranaya meesha maana waxaa aragnay bulsho class ugu timid oo wax wada baranayso waxaan mees ka garanaynaa marka waxbarasho meel ay ka jirto waa meel bulsho ay iskugu timid marka hore oo saaxiibo lagu sameeyo oo dad ay isku dhex galaan isku shayna ay bartaan hal buug baa dhex hor yaallay macallin baa ugu jiray ayagana dad badan bay hayaan marka qof kasta oo classkaas ka mida markii uu waxbarashadaas qaato waxay noqonayaan society wax baratay waxay sii noqonayaan haddana bulsho communities ay noqonayaan marka waxaa weeye laba shay oo isku xiran waxbarasho waxay ka jirtaa meel nabad ka jirto oo kow inay waxbarashada jirto nabad baa loo baahan yahay si nabad loo keenana waxbarashaa loo baahan yahay marka su-aasha meelo badan baa laga fiirin karaa laakiin nabad horta ma shay image leh oo la arki karo oo physically aad taaban kartaa mase waa wax emotional qofka la baro oo waxbarasho xaggeed ka imaaday oo qofka uu develop garayna su-aashaas qofka markii laakiin isaga ay ka daba imanayso dhibaato ku keenayso amaba bulshada ay dhibaato ku keenayso marka sida maasada ka muuqatayna dhinacyo fara badan bay dadka ka tusinaysay marka iyadoo faahfaahsan insha allah nala wadaagi doonaa mar kale qoraalkeena waa laga wadaagi doonaa waxaan u gudbayaa su-aalo intaan ka gaadho waqtigaana waa ilaalinayna inta ay ka gaadho waxaan rabaa 3 su-aalood inaan qaado oo aan ka qaado maxaan ku dhahday kasoo qaybgalayaasha marka su-aalahaas iyadoo la koobayo waxaa la isku dayayaa qofkiiba inuu hadda kusoo koobo su-aal weydiinta hadduu commenti ama faallo bixinayaan faalladiisa inuu bixiyo naam ustaad cabdilaahi السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلامتين بانوكا موضوع برشلونة نوضع حرير كذا حياة كونسبت فرقون بمرتين كذا سنين جزاكم الله خير. هل نضبط كويدين لو أن vocational training كأما ضدك محاكو هذا برشلونة informal كذا دائما شيء and qaabka ugu fiican oo ugu fudud oo contactiga ugu dhow ummadda Soomaalida ah ee ka Soomaalida hadda badan formal education ku yaryahay maadaama dadka duufaysanaan marka informalka qaabka ugu fiican oo ummadda looga faa'iideyn karo su-aalaha ama waan israaxanaya 3 su-aalood waxaa farta aada u taagayay ninka la yidhaahdo mudanaha gadaal fadhiya ha su-aashaada السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا الله سبحانه وتعالى نشوفه كماشا مركع التوء وحنقبها علمية وقال ورنتي كنت بذلك أكن أكثر سأكن فائدتان رنتي دميرنا وقال يشوفنا جدال العراق وحين هدف كل أوجه إنه مدعم تحدود أخوات ليه فائدتان أنا سؤال مقبل لكن واحد طبيعي برامجين إن أتسيوتين لذلك أتشوفين من هذه أوجاتين وايو عقبات بدن نكهر معنا financial problem كريتشن وحياة بدن نكهر معنا والدين دلائرها problem كده قالها
problem xagga oo dadka ah dadku qaar waxaa jiro lagamana fakaro waxna ma qabtaan waxaa maqli jiray wax adiga hebelow geed waxaa jiro riibidin ma daaqo lagamana daaqo macnaha marka dad baa waxaa jiro ummaddan wax ma qabtaan waxna loogama qaban karo ummadda marka waxaan ku dhiirigelinaya dadaalka awdin dhaleeceynta fikirada dadka kale inaysan hoosha idin dhigin bal ay idin noqdaan batrool ah ku socotiin wixiga waa baraarujin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aad ayaad u mahadsan tahay su-aashaas fifa ninka ayaa aad gacanta u taagayay marka waa lagu soo laabanaya idinkana su-aal saddexaad kadib mar labaadka kusoo laabanaya waa lagu السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الإسلام يا دمتي نيجي سؤال كوهنا قبل ويجيب ما يرضى معها جروب كويسة ويعرف ما شاء الله والد الشين وحفظنا القارتين المصريين. كل سؤال شيء هو دينا يا مستر إبراهيم مدام عشق المشاهير وحوالي مدام عشق حول education بيصنع وما حي all education iyo peace-ka waxaa sheegeen farqiga gaabka u dhexeeya su-aashaas fiirayn whole education and peace waa balaarinaya si aad fahanto midda ugu soo horeyso which one is fast sorry which one is fast tan kale oo gaab u dhexeeyna waa maxay gaab u dhexeeya aad baa u mahadsan tahay waan saddexaad kusoo afjaraya marka su-aasha kooda bilaaba qaabka ugu fiican looga faa'iidaysan karo non formal education macnaha qof weynaa tahay waxbarashadii waa ka daaday maadan helin maxaa la dhahaa dugsi hoose dhexe sare ilaa jaamacad inaa gaartid duruufo kala duwan oogeed khasab maaha in maxaa la yidhahdaa qofka uu qaalaasa keliya inay jiraan duruufaha way badnaan karaan qaabka ugu fiican looga faa'iidaysan karo meeshaan aan joogno islii iskuulo badan aa jiro oo maxaa la yidhahdaa arrintaas dad waaweyn waxbaro adult education qaabka ugu fiican waxa waaye in badanaa marka iskuulka la aadayo waxaa jiro waxyaabo badan oo aan muhiim ahayn macnaha carruurta la ciyaarsiinaya si tartiibaan ilmaha informationka loo siiyaa maxaa yeelay qofka markuu sii weynaanayo markuu yaryahay dadka xooganaya qofka markuu sii weynaado inuu micnaha wuxuu qabanayo inay aada u yar yihiin laakiin maaha ilmaha yar iyo qofka weyn waxaa wax dhaqso qaban karo qofka weyn marka waxaa laga yaabaa meeshii 12 sano ay ku qaadan lahayd cunuga in dugsi sare ka baxo qofka weyna in 4 sano 5 sano micnaha waxaa dhan lagu marin karo oo waxaa kaloo laga jarayaa meesha ilmaha waa la ciyaarsiiyaa kala tusaale waxyaabo kaloo waa la madadaaliyaa waa la maaweeliyaa waa la madadisayaa midda labaad ugu muhiimsan waxaa qofka inuu qaato asaga micnaha in uu qofka asaga ka timaado oo uu qaato initiative ila qofka cunugeed markuu yaryahay waxaa laga yaaba inuusan aqoonin sababta wax u barnaa laakiin qofka weyn waa inuu asaga in waxbarashada ka maqan tahay dareemo uuna qaato micnaha mas-uuliyad markaas waxay is leedahay markii aad mas-uuliyadda qaadatid iyo cunugeeda oo iskuulkii lagu qasbaayo oo dugsigii lagu qasbaayo oo gabinaayo oo waxaa miciqaab u arko waxaa is leedahay qofka weyn inuu ka dhaqs markaas dhankaas laga fiiriyana qofka weyn inuu micnaha baahi markay jirto magacisi arrinta kale oo qof caqabadna way imaan kartaa oo qofka micnaha wuxuu isdhihi karaa wuxuu dareemi karaa insecurity micnaha in kalsooni darro markii uu arko cunug 13 jira oo siduu ingiriiska soo ugu hadlaayo ama siduu wax u qoraayo ama siduu wax u akhrinayo uusan micnaha markuu dareemo midaas kalena waa midaasna inaysan dhaxda kaa soo gelin aysan ku joojinin oo inaad aqbashin meeshaa joogtid kabacdina aa meeshaas ka socotay dadaasha tusaale ayay sheegayaa aniga markaan ku jiray classka 6aad wiil maadeeraan ahay baadiyo ay keenaa maxaa la yidhahdaa noo yimid marka nin dadaal badan oo ahaa oo dib badan geed soo raacay magaciisii anigu naga adkaysi badnaa
sanadka koowaad sanadka labaad wuxuu bilaabay shan inuu galo non formal wax ku barnaa aniga laakiin kalaasa sanadka gudbeen haddana kala mid kala gudbeen haddana mid kala gudbeen aniga kalaaska lixaad ahaa markaa xusuusta muqdisho aan joogin marka waxaa dhacday wiilkii inuu bilaabo inuu ingiriis nagula hadlo ingiriisku jijabinaya onaga ku qosleyna waa la yaabana isaga markaa jecleen waa isla joognay dugsiga dhinac naga soo fariisin jira waa nin weyn anaga nalaayarna waxaa dhacday marka wiilkii inuu dhaqsi labadii sano ku jirnay dugsiga shanaad iyo lixaad iyo ku jirnay inuu dhaqsi ku dhameeyey uu anaga naga horgalay dugsiga sare iskuul la dhaho Dekalow taqaana Dekalow iskuul oo galay anaga weli kalaaska toddobaad ku jirnay anaga kalaaska shanaad ku jirnay ama safarad ku jirnay mooyne waa heerka dhacday marka taas marka qofkii uu baran karaa waxaa isleeyahay